السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الكسر وهذا بقال كنا عصب. برلمانka dalka Kenya ayaa ka mamnuucay gudaha xarunta baarlamaanka in lagu xirto labiska suudka ah kaasoo lagu magac daray madaxweynihii hore ee dalka Zambia Kenneth Kaunda. Gudoomiyaha baarlamaanka Moses Wetangula ayaa sheegay in suudkan uu ku tilmaamay dhar dhaqameed iyo dharka kale ee dhaqanka ku turjuma oo laga ogolayn in lagu xirto xarunta baarlamaanka dalka Kenya. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa inta badan xirta suudkan xilliyada uu ka qayb galayo ama uu ku jiro shaqada rasmiga ah. suudka oo surwaal iyo shaati gacmo gaab ah oo isku eg ayaa inta badan la arkay madaxweynaha Kenya William Ruto oo xiran marka uu ka qayb galayo xalfadaha iyo munaasabadaha kala duwan oo ka dhaca wadanka Kenya. Talaadadii ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Kenya Wetangula waxa uu sheegay in go'aanka uu ka mamnuucay dharkan ay sabab u tahay in isbedelada moodada ee soo ifbaxaya kuwaas oo khatar gelinaya xeerka labiska baarlamaanka dalka Kenya. Waxa uu xusay in nidaamka labiska habboon raggu yahay jaakad, surwaal dheer iyo koofiyad kuwaas oo ah kuwa saxda ah raggu qaadan karaan inta lagu jiro xarunta baarlamaanka. Waxa kale uu soo xusay in labiska saxda haweenka ay la imaan karaan baarlamaanka uu yahay koono dheer iyo haaf kuwaas oo aan ka hor imaanaynin xeerka labiska ee baarlamaanka ee dalka Kenya. suudka hadda la mamnuucay ayaa horey looga ogolaaday baarlamaanka iyadoo xildhibaano qaar ay caan ku yihiin inay xirtaan marar badan. Wetangula ayaa ah gudoomiyaha baarlamaanka Kenya waxa uu tilmaamay in suudka waayadii hore qaadashadiisu dalka u ahaa mid caadi ah balse hadda la joogo waqtigii la joojin lahaa maadaama xeerka labiska baarlamaanka uu sidaas dhigayo. sida ay bulshada ugu falceliyeen mamnuucida labiskan ee gudaha baarlamaanka. dood ku saabsan suudka ayaa muddooyinka dambe aad ugu socday baraha bulshada dalka Kenya kadib markii madaxweynaha dalka Kenya Ruto uu bilaabay xirashada xilliyada kala duwan oo ka qayb galaya munaasabado kala duwan. go'aanka ah in suudka baarlamaanka laga mamnuucay ayaa waxaa siyaabo kala duwan loogu falceliyay baraha bulshada dalka Kenya. dadka qaar ayaa ku jahwareersan sababta baarlamaanka u mamnuucay dharkan dhaqanka Afrika ah halka qaar kalena ay soo dhaweeyeen. qaar kale oo ka mid ah bulshada reer Kenya ayaa ku jeesay mamnuucida suudkan ayagoo u arka inaan wax saas u weyneen oo la mamnuuci karo ah. waa kuma ninka suudkan loogu magac daray ee ku caanbaxay qaadashadiisa. suudkan oo si aan looga xirto dalka Zambia ayaa waxaa lagu magac daray madaxweynihii ugu horeeyay ee Zambia Kenneth Kaunda. waxa uu safka hore kaga jiray halgankii xorriyadda ee dalkaasi ay ka heleen gumaystaha Ingiriiska. waxa uu soo noqday hogaamiyaha xisbiga Zambia African National Congress. sanadkii 1973 ayaa loo doortay madaxweynaha dalka Zambia kadib rabsho qabiil dalkaasi ka dhacday. waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa shakhsiyaadkii lahaa ganacsiga ugu badan ee wadankaasi. waxa uu caan ku ahaa xirashada suudkan surwaalka iyo shaatiga isagoo markii dambe loogu magac daray suudkan. madaxweynaha Kenya kama uusan hadlin ilaa iyo hadda go'aanka ka soo baxay gudaha baarlamaanka kaasoo la mamnuucay xirashada suudkaasi lamana oga inuu dhaqangali doono go'aanka iyo in kale.